laga yaabaa inuu xog oo ka baqayo ama in telefoonkiisa tixraaca lagu sameeyo halka uu ku sugan yahayna lasoo beegsado maalmo ka hor wuxuu yidhaahday waan un midoobeynaa dagaalka al-shabaab saas darteed marka qofkii shabaab arrimahooda ka hadlo shabaabka waxay isku dayaan inay weeraraan marka laakiin meeshan waxaa la sheegay inay madaxtooyada u dhowdahay isla markaana amnigeeda aad loo sugay xildhibaano badan mas-uuliyiin agaasimayaal dhammaan ay ku sugan yihiin goobta ayada see ku suurta gashay in halkaasi laba beegsada qaraxa hadda markaan soo sheegay walaa waa sax meesha meel oo sahlan oo lagu geli karo si fudud maaha laakiin waxaa laga shakisan yahay dad inay fududeeyaan ama nisa ahaato ama askarta caadiga ahaato in dad dowladda ka mid ay fududeeyaan loo malaynaa marka arrintii lama soo afjirin weli shabaab ayaa gudaha ku jira oo dagaalka meesha gudaha u galay rasaas ayaana weli ka dhacayso dad oo meesha ku sugan oo deegaankan waxay leeyihin wax joogsada malahan qaraxyadii way dhaceen laakiin waxaa weli socdo oo rasaas ayaa meesha ka dhex socoto ciidamada dowladda oo meesha wariyaashu ay gaareen oo isku dayeen in xog ka helaanna way ka diideen inay xog siiyaan wax warar oo intaas dheer aan xogaashow ka soo baxaya ma jiraan waan kuu soo noqon doonaa daawadayaal qaraxyahaasi waaweyn ee ka dhacay caawa magaalada muqdisho ee weliba lagu weeraray mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo oon la soconay in magaalada aan dhehe dalka soomaaliya uu ku jiro dagaal lagula jiro ururka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu socdaal uu ku mariyey furimaha hore ee dagaalka maalmihii u dambeeyey isagoo ku baaqayay in si wadajir ah looga soo horjeesto ururka al-shabaab isla markaana dagaal lagu qaado haddaba waxaan arrimahaasi mar kale ka wareysan doonaa saaxiibkay Faragood oo isaga laftiisa la socday dagaaladii ka socday maalmihii u dambeeyey qeybaha kala duwan ee gudaha dalka Soomaaliya Faragood soo dhawow habeenahan maalmahan waxaan la soconay dagaalo inay ka socdeen gudaha Soomaaliya qarax weyn caawa dhacay marka qaraxaasi iyo qaabku dhacay iyo hay'adda NISA kaalinta ay ku leedahay qaraxyahan inay baajisan loo baahnaa balse si badanayo maalmihii u dambeeyey بدنو أدي أد بدو ما حسن تهاي سيدو كله وحنو ما تعلننا جودهم ببرشة الصومالية دينا دقيسنا يا أم بابنا داونا يا سيدا الله سعطيبا تضبادي دي هذا وجودن بيجي وحاجري دجال حوجان وكذا أورك على الشباب ومدو شنو يتوما سنين كبدنا ومدة الصومالي دي بيجي شنو يتوما كيما مركي لدورتين مدحوين حسن شيخ محمود سيدا الله سعطه وحاجري إن مجرنا يسام مدحوينه وبلن قاضي in uu doonayo inuu ka takhaluso kooxaha al-shabaab waxaa jiro dhanka kala garab socday dawlado fara badan oo nimankan dacmiyo oo si dadban ma garanaysa marka xaqiiqada laga hadlo gacan saar lana kooxdan al-shabaab waan doonaynin in dalka Soomaaliya guud ahaanba ay nabad ka dhalato imaha marka laga yimaado ummadda Soomaaliyeed waxaad moodaa markii ugu horeysay ee ay intooda badan majority-goodu ay u midoobeen sidii kooxdan al-shabaab dagaal xoogan loogu qaadi lahaa kooxdani marka maadaama koox argagixiso caalami ay yihiin intooda badan waxa ay leeyihiin qorshayaal fara badan bay leeyihiin istiraatiijiyad oo ah step 1 hadii tusaale ahaan dagaalo xoogan lagu soo qaado oo linaga awood bato maxaan ku baajin karaa step 2 arrimahaas aan sameyn karaa step 3 waa wax noocaas oo kala marka nimankan waa niman u tababaran qaabab noocaas oo kala haddaba si indhaha ay u jeedsadaan oo indhaha ciidamada iyo kuwa bulshada iyo caalamkaba ay u khaldaan waxa ay inta badan sameeyaan marka dagaaladu ay ku soo xoogeystaan in ay dad ismidaamiyo oo qaraxyo ka geystaan magaalada Muqdisho ama gobolada kale sida Hiiraan iyo meelaha kale sida Galmudug oo kale ayay markaba abaabulaan taasina waxay uga guleeyeen laba xaalo koow hay'adda NISA ee magaranaysa sirdoonka ah ee barbar la shaqeynaysa magaranaysa wadamada caalamiga la kala shaqeynaysa sidii duqeymo xoogan loogu sameyn lahaa kooxda al-shabaab madaxdeeda loo beegsan lahaa in xogtii la raadinayay ee ayaga lagu daba jiray in magaranaysa dhankan uu weecdo si magaranaysa dabagal loogu sameeyo qaraxyada waaweyn laguna mashquulo dhaawacyada iyo dhimashada iyo waxyaabaha filanwaaga ee meesha ka soo muuqanayo inay ra'yul caalamka iyo bulshada iyo awoodda magaranaysa isku meel la saarayo in ay sii jeediyaan waana wax inta badan dawladaha iyo wadamada iyo ururada magaranaysa ay ku dhaqmaan arrimaha marka laga gudbo hay'adda NISA waayadii hore sida aan la socono waxa ay kamid ahayd top 10 ay ku jirtay wadamada magaranaysa ee Afrika marka la yiraahdo wadamada ugu sareeya xagga sirdoon ahaan ayay kamid ahayd ninka hadda loo magacaabay Mahad Salaad bilii ugu horeeyay aad ba loo dhaleelsanaa inkastoo shaqada uu ku cusbaa haddana dhaliilo fara badan ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu imanayay oo ah in kooxda al-shabaab uu xiriir fiican la leeyahay laakiin arrintaasi maadaama nin xildhibaan ahaa wax cadeyn oo loo hayay ma aysan jirin laakiin wali waxa weeyaan waa nin hay'adda NISA madax ka ah wuxuuna sameeyo qorshayaal fara badan oo lagu fashilinayo kooxdan al-shabaab ee ka dagaalamaysa koonfurta Soomaaliya
marka lasoo ururiyo qaraxani waxa uu geysan karaa sida uu saaxiibkay gooni sheegay khasaare waa uu geysan karaa oo wasiirkii amniga master dodisha ayaa ku dhaawacmay siduu markii aad la socotaba markay meel wax ka dhacaan dadka famuska ee la garanay ama wasiir ha noqdo ama sheekh ha noqdo ama shariif ha noqdo dadka ugu horeeya ee lasoo bootiya waxay noqdaan dadka mas-uuliyiinta ee meeshaas ku dhaawacma laakiin dhimashadu iyo dhaawacu dib bay laga soo sheegaa oo waxaa laga yaabaa mas-uuliyiin kale inay jiraan baa laga yaabaa dhaawacu inuu inta ka bataa laga yaabaa laakiin muhiimaddu waxa weeyaan oo laga rabaa dowladdu inay xadido ma garanaysaa oo yarayso maadaama hadda meeshii uu villadii uu dagaal ka socdo inay dagaalada maxaan ku dhahay ay yarayso khasaaraha oo ciidamada sida hadda gorgor ay u tababaran waxaa mar walba looga baahiyay inay yareeyaan khasaaraha ay geysanayaan kooxdan ka dagaalamaya gudaha intooda badanna caado waxaa waa inay marka hore qarax ku weeraraan marka labaadna ciidamo u diyaarsan oo loogu talagalay inay ma garanaysaa wixii ka badbaada qaraxa inay dilaan ay maasan tahay saaxiib faragod haddaan usoo noqon mar kale saaxiibkay gooni waxaan la soconay maalmaha inay socotay xilka qaadis lagu sameynayo taliyaha hay-adda nisa mahad maxamed salaad haddaba xaggey maraysaa iyadan ognahay tan iyo markii loo magacaabay hay-adda nisa in amniga caasimadda magaalada muqdisho inuu faraha ka baxay markaan qaraxyo waaweyn iyo weliba ismiidaamin ay maalin kasta ay ka dhacaan horta cukaashow inta badan hadda hay-adda nisa waxay ku mashquulsan tahay duqeynta ururka al-shabaab ayagoo isku dayay inay hagaan ciidamada duqeynta ka wada maraykanka iyo turkiga marka hay-adda nisa waxay ka mashquushaa leeyahay arrimihii gudaha oo magaalada muqdisho iyo amnigeeda ayay ka mashquushay waxayna ku mashquushay duqeynta ururka al-shabaab lagu beegsanayo marka inta badan waxaa lagu eedeeyo ninka la yihahdo mahad salaad waxaa ka mid ah in amniga gudaha oosan xoog saarin duqeynta ay sameynayaan dowladaha shisheeye soo ma xil saarneen muxuu ahaa ciidanka danab ciidamada danab baa u xilsaarnaad laakiin waayihii dambe waxaa la wareegtay hay-adda nisa taasoo inta badan hageysay qaraxyada iyo duqeymaha ururka al-shabaab lagu beegsanaya deegaano fara badan oo ka mid a hirshabeelle iyo deegaanada la yihahdo shabeellaha dhexe inta badan ururka al-shabaab lagu laayo oo ay ugu dambeysay shalay iyo doraad oo lagu laayay ceeldheer meesha la yihahdo ilaa 100 ka tirsan ururka al-shabaab marka inta badan waxaa hagayo hay-adda nisa ayadana gacanta ku dhigtay amniga iyo duqeyntana waxay kaga mashquushaa leeyahay duqeynta kaga mashquushay amniga magaalada muqdisho way ka mashquushay marka xilka qaadistii ninka la yihahdo mahad salaad weli way jirtaa oo way wareegaysaa laakiin waxaa leeyahay haddii lacaal xilka mahad salaad laga qaado xataa waa nin saaxiib la ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay ka wada tirsan yihiin dhama jadiid iyo badbaado qaran waxaa laga yaabaa marka in meel kale loo magacaabo mehe mahad salaad meel cidlo lama dhigayo sida wararka nagu soo garayaan cukaash waad mahadsan tahay daawadayaal intaasaan kusoo afmeerinaa barnaamijkan daawadayaal waxaa intaas kusoo afmeynaa barnaamijkan qaraxyada iyo weliba dhaawacyaha laga soo sheegaya gudaha hotel villa rosa way socotaa barnaamijyaheedana dambe ayaan insha allah ku falanqeyn doonaa wixii kasoo kordho dhimasho iyo dhaawac iyo weliba xogaha saxda ah halkaasi laga heli karo maadaama hadda warbaahinta aan loo ogolayn in gudaha ay u galaan meesha ilaahay baa u maqan